gudoomiyaha sanatarada meediyaha xogayaha joogtada habdooreyaasha dhammaan waa idin wada salaamaya salaanka bacdi aad baan uga xunahay sanatarka cabdi cawaale qaydiid oo gurigiisa falka loo geystay aad baan uga xunahay dadkii raacay baan ahaa markii loo soo sheegayna shir baan ku jirro waan wada joognay aad baan uga xunahay walaalayaal horta waxyaalo badan in la iska indha tiro aad baa xuntahay wadankan imaaraad ma xukumo maxaa la yiraahdaa niman carab oo imaaraadana hub inooma soo qaadan askarta imaaraadkana waxa loo tababaray Soomaaliya waa ciidamo Soomaali loo tababaray oo sidaan maqlay 1600 ah ciidamada Soomaaliduna waxay ka amar qaataan waa Soomaaliya waa taliyaha xooga dalka marka waxba waxyaalo badan la iska indha tirin waa in la soo qabtaa meeshan waa u jeedin waa dad dangaara wata raba dawladda iyo inay xildhibaanada inay dadka iska hor keenaan marka dadka raba in la iska hor keeno waa in la soo qabtaa ciidamada laftigooda oo masaakiinta dhalinyarada ana amar bay ku socdaan hadii jeerka wax ku dhacaan waa ciidanka waa miskiinka askariga loo ooyaanka ah markii dadka dad baa ka dambeeyay askariga intuu iska soo baxay oo xiradiisa ka soo baxay gurigiisa ma weerarayo askari inaga wayna la joogtaa haday nabad sugidiin iyo haday imaaraadiin iyo haday boolis iyo haday military jananay ka amar qaataan janankii marka ama taliyaha amarka siiyay baa la in maxkamad la soo saaro sabab xitra qaybkii loo xiray soo qoyso haddaan kuwa waxba la qaban gudoomiyaasha laga bilaabaya sanatarada ku xiga xildhibaanada ku xiga xabad baa la idin la baxaya marka cabdi cawaale qaydiid oo maanta ah gudoomiyaha dastuurka oo labada gol oo maanta xilalka ugu weyn oo sanatara oo haddana janan oo la yaqaan sida loo galay dadka kalena duhur cad laba askari ay ku filan guriga la idin soo diro marka runta aan ka hadalno dadka la soo qabtay oo la keenay maxkamad la saaro taliyaasha meeshu ka yimid geedka haddana xididka loo siibin waa soo baxaya marka meesha waxba aan la taataabanin boorta inay sideeda loo dhayaa fiican marka dadka dad baa ka dambeeya waa silsilad dheer waa inay dawladdu silsilada dheer la daba galaa kulligeen way nabad way noo fiican tahay waan ku wada noolahay ka qaxaya waa inaga awlaadeena wax walba marka runta laga hadlo taliyaha xooga dalka hala waraysto sidoo ay sanataradii horeeya la keenay halana la keenay wasiirka gaashaandhiga dadka amniga ku saabsan mid kale madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu sida u dhaqso badan taliyaha nabad sugidda loo magacaabo ma aha hebel baa wax sameeyay annaga lagu leeyahay ma xukumaan waa in dad la xisaabtamo oo janana alla keenaa meesha ugu horeysa amnigan ka dhimanay marka amniga markii la qaado in 24 saac waxaan ka codsanaynaa inuu soo magacaabo taliyaha nabad sugid oo odaamo oo boolis oo meel la xisaabtamo ay timaado Soomaali ka soo waxba la dilo askar baa la laayay war askartu waa kuwa ku noolahay lama ooyaan koox xira waa iyaga koox dhabta ku dhacaysa waa iyaga madaxweyne ra'iisul wasaare waxa la idin ka codsanaynaa sida u dhaqso badan inaad horta taliyaha nabad sugid loogu soo magacaabo mid kale dadka amniga shaqo ku leh waa inay keenaan sida u dhaqso badan dadkii arrinta ka dambeeyay askar yar oo miskiin la amro waxba aan jeelka lagu guro meeshii arrinta ka dambeysay hala keeno dhammaan oo salaamantiin